dhammaan taageerayaasha faraha badan ee xisbiga kulmiye ee isugu soo baxay fagaaraha beerta xorriyadda Hargeysa waxaan idin soo gudbinayaa salaan xambaarsan nabadgelyo iyo naxariis eebbe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. mudanayaal iyo marwooyin milkiya maamuus weyn bay tahay inaan maanta oo muddo xireedkaygii gabagaba ku dhow yahay aan hortiinna imaado isla markaana idiin soo jeediyo hadallo dardaaran iyo ducaa. mudanayaal iyo marwooyin waxaa ogaala in xisbiga kulmiye uu ku guulaystay hoggaamintii talada dalka muddadii dalka uu dowladda ka ahaa. waxaa ogaala in taageerayaashii noo codeeyey doorashadii 2010 aanay guuldarraysan isla markaana aanay fartoodii dib u hiifayn. muddadii 7 sano ahayd ee kulmiye talada dalka hayay wuxuu kobciyey dakhligii dowladda iyo dhaqaalihii dalka, wuxuu kordhiyey kaabayaashii dhaqaalaha, wuxuu si weyn kor ugu qaaday adeegyadii asaasiga ahaa ee nolosha bulshada, wuxuu adkeeyey amniga qaranka, wuxuu islaaxiyey garsoorkii iyo cadaaladdii loo oomanaa. kulmiye wuxuu ururshay dadkii kala irloobay ee walaalaha ahaa. kulmiye wuxuu dalka u horseeday horumar ballaadhan iyo maalgashi caalamiya. sidaa darteed waxaa leeyahay kulmiye wuxuu ku guulaystay, qarankeenina wuu guulaystay. waxaan leeyahay taageerayaashii xisbiga kulmiye way guulaysteen goob kasta iyo gobol kastaba oo ay joogaanba. mar labaad waxaan ku celinayaa xisbiga kulmiye shalay wuxuu ku guulaystay, maantana wuu insha allah waa guulaysan doonaa. waxaan leeyahay isbeddelkii codka taageerayaasha kulmiye sababtoo ahaayeen laguma khasaarin ee waa la mahadiyey. waxaan jecelahay halkan uga mahad celiyey dhammaan waxgaradka, aqoonyahanka, waayeelka, haweenka iyo haldoorka dhallinyarada ee codkooda suurtageliyey in kulmiye guulaysto isla markaana aan noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. sidoo kale waxaan ku bogaadinayaa guud ahaan shacabweynaha Soomaaliland dadaalkii iyo doorkii ay ka qaateen dib u dhiska dalka, adkaynta nabadgelyada, kobaca dhaqaalaha, midnimada iyo wadajirka ummadda muddadii aan qarankan odayga u ahaa. ducaqabayaal, sida aad la socotaan waxaa maalmo kooban ka hadhsan yihiin doorashadii madaxtooyada, taasoo saameyn weyn ku leh mustaqbalka dalka iyo dadka jamhuuriyadda Soomaaliland. haddaba waxaan ugu baqayaa shacabweynaha Soomaaliland inay codeeyaan isla markaana doorashada si buuxda uga qayb qaataan, inay nabadda ilaaliyaan kana feejiganaadaan wax kastoo abuuri kara xasilooni darro, inay gacan siiyaan ciidamada ku hawlan sugidda amniga, inay isu dulqaataan isla markaana isku ixtiraamaan kala duwanaanshaha aragtiyaha siyaasadeed ee dhexdooda ah, in la dhowro xeerarka iyo anshaxa doorashada isla markaana loo hoggaansamo go'aamada guddiga doorashooyinka qaranka. ugu dambayn, si horumarka iyo waxqabadka xisbiga kulmiye uu taabageliyey halkaa uga sii tis qaado, waxaan ugu baqayaa shacabweynaha Soomaaliland inay taageeraan isla markaana u codeeyaan murashaxiinta xisbiga kulmiye. waxaan aaminsanahay in mudane muuse bixi cabdi uu yahay hogaamiyaha ugu habboon ee halkaa ka sii wadi kara hiigsigii uu lahaa xisbiga kulmiye iyo horumarkii dalku u baahan yahay mustaqbalka dhow iyo ka dheerba. waxaan ilaahay ka baryayaa inuu dhammaanteen inuu dembi dhaafo. waxaan ilaahay ka baryayaa inuu tacabka, talada iyo tawfiiqda inoo hagaajiyo. aamiin aamiin. guulaysta.